السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي وقالي في دوار جناب كجون جوان ما أنت وحارنا إن سوق الدنيا موقع أسوق كاس عن طريق لا أرتدي وأحضر تصنع حقان جار أنكو أساس كأ عشر كمان أسوق الدنيا وحق الموضوعنا قاب كمسجد الله طلع جو سريرك أنتظر ما إن شاء الله تعالى وحنقضونا وأعرف إنه جو سرير لو نفر وشوش الأحمر إن شاء الله تعالى أصحابتي قالي كأكسو دوار جنالك كفايدته 10 مهم ما أنتوا حسب سيدا أكبر معناها أكبر الله يتقاك إذا تلي سريرك عشان توبر ومعناها باخدنا بالله هذا مركب سريرك لما نفر واي مركب عبد كسر تضوية جوا مركب إن شاء الله تعالى مركب كفايدته عن السلام عليكم أصحابتي قالي kusoo dhawaada janaabka Juni Jawaan maanta waxaan inaan soo gudbino qaab kala tala marka hore go'a waxaad cabiranaysaa go'a aad leesid joodariga dhirirkiisu waa 2 yardi iyo bar iyo tumin go'a aad cabiraysid dhirirkiisa marka hore waxaad ka dhigaysaa 2 yardi iyo bar iyo tumin asxaabteeda qaaliga go'a sariir waa 2 nafar waa shushur waa marka hore cabiraysaa maradan guud ahaan waa 7 yardi marka waxaad goosanaysaa marka uu horeys 2 yardi iyo bar iyo tumin oo jeexaysaa xogaayar jeexaysaa muddo jeexaysid xogaayar bilaawaysaa kadib haddana mar labaad ayaad waxaad cabiraysaa inta camal lacanaha 2 yardi iyo bar iyo tumin maadaama oo laga nafar yahay 2 yardi iyo bar iyo tumin waa kaas marka waa jeexaysaa marka meesha muddo jeexaysaa waxaad bilaawaysaa waa jeexaysaa okay kadib haddana cabirka aad siiyaysaa markaas intii kale haddana cabirnaysaa mar labaad 2 yardi iyo bar iyo tumin kale aad cabirnaysaa 1 2 yardi iyo bar iyo tumin markaas waxaan ku jeexanay go'sarka 7 yardi oo bacweyno marada aan ka jarayno marka kan toos aad u jeexaysaa marka laba mar oo min 2 yardi bar iyo tumin oo isku dhagan ayaa noo taal xaqan dhiganayna markaas waa marka yardi bar ayaa noo soo haraayo iyo tumin ayaa noo soo haraayo marka toobarto kii hore aan toobarto baan ka jarnay marka cabirka xogaa meesha ku dhumay rubaca tumin naga dhumay marka waa simeysaa marka kan waad isku laabaysaa maradan soo hartay barkimanka ayaan ka dhigaynaa waa yardi iyo bar waaye marka yardi barkaas wuxuu noqonayaa 2 barkin iyo macnaha iyo koofiyalkooda 2 barkin iyo 2 koofi oo barkimanka lagu tolaa 2 barkin macalin koofiyadooda ayuu noqonayaa marka kala dhirkaas iyo waxaas ayaan ka jarnaa marka insha Allah taala asxaabtayda qaaliga kusoo dhawaada janaalka markii aan meeshaan ka jarno ma aragtay oo kala dhirkaas kadib ayaan barkinta ayaan cabirkeeda aan gudagalayna insha Allah taala asxaabtayda qaaliga marka barkintan hadda marka isku laabantaasaan markii maaragtay maradan bacweyne maadaama ay tahay dhirirkeeda wuxuu ahaa moogtahay 58 marka 58 marka la isku soo laba laabo wuxuu noqonayaa 29 marka 29 kaas barkinta dhirirkeeda marka isku soo afar laabaya marka dhirirka barkinta marka waa haystaa afar laabka hadda isku soo laabo barkinta dhirirkeeda marka balaca barkinta oo kaliya ayaan dhimay marka balaca barkinta ayaa marka aan jarnaynaa marka cabirka aan saarnaa meeshan 20 inji waa balaca barkinta dhirirkan waa 29 kala 29 waa haysanaa oo foodaraha baalka maarto maradan bacweynaha balaciisa ayaa marka la isku laabo wuxuu noqonayaa barkinta dhirirkeeda maadaama asaga oo macnaha dhirirkiisa oo macnaha balaciisa uu yahay 58 marka la isku soo laabo marka wuxuu noqonayaa saan oo isku laba laabaya saan marka bacweynaha isku laba laabo marka bacweynaha marka oo fidsan yahay balaciisa waa 58 inji marka la isku soo laabano waa 29 inji oo noqonaya marka 29 kaas inji barkinta dhirirkeeda ayaa 29 inji marka kadib marka aad isku afar laabto oo isku laba laabto kadibna isku soo afar laabto ayaad balaca saarnaysaa marka balaca barkinta oo dhirirka barkinta aad haysataa oo asaga ayaa baalka bacweynaha asaga ayaa dhirirka barkinta leeg marka macnaha isku laba laaban yahay oo 29 inji marka balaca oo kaliya aad u baahnaysaa marka meeshan waa sameynaa hal barkin ayaan jarnay barkinta hadda aan jarnaa tii labaad oo fooda hore aad ka sameeysaa kadib cabirka ayaa saaraysaa oo 29 inji aad saaraysaa kadibna waa jarnaysaa aan 20 inji aad saarnaysaa maaragtay oo balaca barkinta balaceeda afwan 20 inji aad saarnaysaa kadib maradan kale to yirta geeska soo saaraysaa waxay ku noqon doontaa 2 koofi oo maaragtay barkinta lagu toli lahaa marka asxaabtayda qaaliga ka faa'iideysta marka barkinta 2 barkin ay ku jaran tahay maada geeska ku taal ayadana waxaan ka dhiganaynaa macnaha 2 koofi oo isku afar laaban tahay waa kala qaada marka hadda isku laba laaban tahay marka waxaan ka saarnaa marka barkinta aan kor saaraynaa qaab dhir camal aan kor saaraynaa hadda waa kana si aan ku tusoo ka saamjeeda isku laba laaban tahay marka isku laba laaban tahay
markii aan barkinta ku dul jiro dhuut waxay noqonaysaa laba xabo oo isla eg si dhuut macnaha ay laba koof u noqoto insha allahu tacaala asxaabtayda qaaliga ah. marka waa kana waan saarnay barkintii ayaan si dherdher u dul saarnay marka qartab marka waa jarana marka insha allahu tacaala labada dhinac ayaan ka jarnay dhinacaan waan ka jarnay macnaha si ay ula ekaato balaca barkinta koofida wax yar oo been ayaan ka weynay geeskan ujeeda wax yariis oo beena si ay dhuuta aysan kaaga oo barkinta oo cariri aysan kaaga noqon. marka asxaabteyda qaaliga oo ujeedaan qaabkan u jarnay hadda waxaa noo jaran barkinta oo dhammaystiran iyo macaan labada koofi labada barkinna way noo jaran tahay mid marka hore jarna midna tii labaad tanna waa kana koofi koowaad iyo tii labaad kaas aan ujeedaa. marka labada barkin ay noo jariyeen marka waxaan usoo gudbaynaa go-sariirka asaga labada fidqo waa inoo cabirnaya oo 2 yardi bar iyo 2 yardi bar iyo 2 ayaa noo cabirnay meel yar ayaa nooga jeexnay. marka jeexaas marka hore waxaa macnaha waxaa u dhamaystiri waayay go-a biliciisa ayaa aada u weyn marka balaca go-a ayaan ka reebanayna kadib wixii dheer ayaan iska jeexinaa kadib ayaan meeshaan kala jeexinaa jeexaan meeshaan anoo dhirirka balaca go-a anoo cabirin meeshaan jeexaan ma jeexaayay marka go-a biliciisa aan cabiro oo cabirka aan rabo marka aan la baxo ayaan reebaynaa. marka go-a marka dhirirkiisa waan kuu sheegay 2 yardi bar iyo 2 marka biliciisana waa 47 inji xabadkiiba 47 inji ay noqon doonaa markii la isku daro 94 ay noqonaa 2 yardi bar iyo 2 yardi bar iyo 2 marka 2 yardi bar iyo 2 marka ayana la cabir laga dhigo ayana 94 inji ay noqonaysaa ayana. marka go-aas isu kala dhigan anoo labada go kala jaran macnaha labada go-sar macnaha laba nafarka anoo intaa kala jaran kahor dhirirkooda ayaan 47 inji saarnaya kadib hal mar ayaan ka jeexanaya sababta marada hadhuta dii aan kala jeexo oo kadib marada aan ka jaro shushulka ayaa halaawaya oo macnaha ka kaba noqonaya marka si mar dheer oo shushul ay noqoto si ay ugu soo baxdo macnaha marka hore inta aadan balaca go-a aadan kala jeexin kahor macnaha dhirirkiisa inta aadan kala jarin kahor oo laba xab aadan ka dhigin kahor ayaad cabirka dhirirka macnaha cabirka balaca saaranaysaa kadib waxaa ka jeexaysaa maradaas dheer ayaad ka reebanaysaa oo maaragta oo dheeraadka ku marada bacweynaha ah markaas ayaad waxaad kala jeexaysaa markaas go-a markaas ayaad kala goynaysaa oo aad laba xab ka dhigaysaa marka asxaabteyda qaaliga ah. okay marka hadda waa kasaa kala jeexna marka kow waa kasaa marka insha allahu tacaala asxaabteyda qaaliga ah ka faa'iideysta. marka labada go waa kasaa way ku jaran yihiin mid kasta oo labadan go kamid ah dhuuta isku dhijinaya marka mid kasta labada go isla egyihiin mid kasta waa dhirirkiisu waa 2 yardi iyo bar iyo 2 biliciisuna 47 inji kadib waa isku dhijinaysaa marka macnaha markaad kala jeexa ama dhir ahaan isku dhiganaayeen sida aad dareemaysid hadda marka balbalaca ayaan isku dhijinayna macnaha si ay laba nafar u noqdaan macnaha waa kana hadda halkii foodare halkii go-sariir waa kana saan ay noqonaa marka hal nafar ka yahay saan ayuu hal nafar ku yahay marka kan kale marka lagu dhijiya ayuu macnaha laba nafar noqonaya insha allahu tacaala asxaabteyda qaaliga ah. marka kadib geesaha shulka ugu soo wareejinayna marka hore waa kaasa 47 inji waa biliciisa dhirirkiisana waa ma aragtay ama 95 inji waa dhihi kartaa ama 2 yardi iyo bar iyo 2 waa dhihi kartaa sida aad jeceshahay oo 2 yardi bar iyo 2 ayaa waxay u dhigantaa 90 inji oo yardiga 36 yardi kale 36 waa 72 nus yardiga 18 waa 90 inji waa 2 kana 5 inji waa 90 inji isku noqonaya marka asxaabteyda qaaliga kan waa kii labaad marka labadan go-sariir ayaan qaadaynaa waa isku soo dhijinaynaa laakiin marka hore maradan waa marada shushulka nooga soo harto waa maaragta go-sariirka biliciisa aan ka jarnay maadaama maaragta oo marada bacweynaha ee bilaceeda tahay 58 inji 47 inji ayaan ka jarnay macnaha oo bilaca go-a ah 47 inji markaan ka jarnay kadib maradan dheer ayaan noo saartay marka maradan go-a haddii aan marka hore kala jari lahay marasaan dheer noo soo bixi lahayn tan 2 kab ayaa naga noqon lahayd marka kan marka hadda 3 aan qaybinayna isku kabaynaa kadib wuxuu noqonayaa 3 kab laakiin haddii go-aan kala jeexi lahay kan macnaha 6 kab noqon lahay marka shushul oo ka badan oo ka noqon lahay marka hadda laakiin ka badan ma yeelanayo oo saan ayuu macnaha 3 xab oo kaliya waay 3 xab isla noqonaya shushulka hadda ay jeed halka xab kaligiis wuxuu la egyahay labada go-sariir dhirirkooda la egyahay mid kasta waa macnaha saddexda mid kasta kamid ah wuxuu u dhigmaa 2 yardi bar iyo 2 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 waa marka saddexda mid kasta dhirirkiisa waa 5 yardi iyo rubac waa mid kasta oo labadan kamid ah saddexdan kamid ah marka saddexdooda marka min 5 yardi iyo rubac ay noqonayaan waxay noqonaysaa marka 5 yardi iyo rubac lagu daro 5 yardi iyo rubac waa 10 yardi iyo bar lagu daro 5 yardi iska 5 yardi iyo rubac 10 iyo 5 yardi iyo bar waa ayay noqonayaan saddexdan xabo marka la isku kabo marka saddex xabo marka isku kabno waxaan shushul ugu dhigaynaa go-sariirka ah iyo laba barkin ayaan shushul ugu dhigaynaa
kadib inaad ku qiyaastana laga rabaa. shushulkan hadda 15 yaard marka noqdo xoogaa weer yahay laakiin qiyaas ayaa la rabaa inaad ku keento. haddii aad dhigto adiga aad tababar ku jirtid waxaa meesha aniga aan 7 yaard ka isticmaalay 8 yaard aad isticmaali kartaa si aad u hesho shushul tiro badan oo aad si wanaagsan macnaha ku dhiban ama aan ka dhamaanaynin. laakiin hadda anakan maadaama 15 yaard oo yahay dhirkiisa waan ku qiyaasi doonaa markinta waa iyo joodaraha iyo maaragtay iyo baalkan qasarta in la ekeysiyo ayaan macnaha isku dayi doonaa insha Allah taala. okay marka hadda waxaan isku kabeynaa 3 xabo ayaan isku kabeynaa 3 maaragtay shushul. hadda shushulkan dhinaciisa fiican kor soo jira kan kale marka aan fawdo u saar dhinaciisa fiican hoos aan xijinaya labada dhinac fiican is xijinaya intaas inaa fahanto isku day macnaha aniga shuruucda inaan ku sheego aan rabaa wax kasta markaan ku sheegay qaabkan ku sheegay u qaado oo macnaha muuqaalkan haddii hal mar ku fahmi wayso aan kamar loo ku soo cesho si aad u fahantid waa kana hadda kabka labaad aan saar kadib kor aan ka toleynaa hal mar. okay hadda laba xabay isku kaadigan kan hadana kii kale saddexaad ayaan ku dhijinaynaa asagana marka kale waa kii ugu dambeeyay. marka hadda dhinac fiican ay soo koray kan dhinac fiican hoos xigo oo ku dhijiyo kaasa marka. okay marka waxaan ismanaynaa bahalkan maaragtay oo maaragtay waxaan isku dhijinaynaa labada go aan isku dhijinaynaa macnaha oo maadaama laba nafar oo ahay labada xabay aan isku dhijinaynaa oo balcooda aan isku weyneeynaa macnaha maadaama laba faata ay yihiin. dhererka cabirka oo ka saxan yahay macnaha go-sariirka hadda marka aad ku jarnaysid cabirka dhererka kab kaaga baahno oo waa 2 yaard iyo bar waa laakiin balaca mid kasto 47 inch waa marka labada marka isku geysid ay macnaha ayagana dhameystirayaan oo waxay noqonayaan markaas go laba nafar ah oo macnaha dhameystiran. marka kan dhinac fiican soo koray u jeedaan dhinaciisa fiican kor soo jira kadib marka kale dhinaciisa fiican asagana hoos ay xogaa oo macnaha labada dhinac fiican aan isxijaad u macnaha gadigidis oo ka noqonin. okay adoonka isku dhijinaa marka labada dhinac fiican go' waan isxijiye dhinaca hadda kor dhinac xumaa macnaha dhinaciisa fiican hoos oo xogaa mid hoos dhinaciisa fiican kor soo xogaa labada dhinac fiican go' aan toleyno waan isxijinay si aad oo kala gidis ama gidis oo ka noqonin. marka qaabkan ku sheegay u faham isku day inaad fahamtid asxaabtayda qaaliga ah. okay hadda marka waxaan ka toleynaa dushaan ka toleynaa maadaama aan isku dhijinaa hadda sidii dirac camal aan isugu dhijinay marka dusha ayaan ka toleynaa sidii gabsaarka camal sariirkan waa dusha laga tolaa gabsaarkan waa la tolaa marka waa kana ujeednaa hal dhinac labada af aan tole oo hal dhinac isku laabaya marka kadib ayaan dhinacaas maaragtay baasan tolaya oo ujeedaa kaasaan ujeedaa marka aan laaba afka hore ka tolaya macnaha marka aan u laaba af foodo hore aan ka tolaya. camera zoom ku soo ujeedaan marka si aad u fahamtid qaabkan u laabayo dhinaca hadda oo koreeyo dhinac xumaa oo go'awaaye dhinaciisa bar islaamka ah waaye marka dhinaca hadda koreeyo maadaama marka data isku dhijinaya labada dhinac fiican aan isxijiyo marka labada dhinac fiican aan isxijiyo semberi dhinaca fiican markaas gudaha banaanka ay ku mari doonaa oo dhinaca xun ay gudaha soo gali doono. marka waa kaas marka tolmada macnaha waxay soo maraysaa marka shay kasta marka isku dhijinaysid labada dhinac fiican marka isxijiso tolmada waxay galaysaa dhinaca xun ay maraysaa markaas laakiin labada dhinac waxay isxijiso tolmada dhinaca fiican ay soo maraysaa intaas faham. marka hadda go-eyga aan tolnay wuu isku keen dhagan yahay oo gadinina dhinac kale u gadinina qaabka banaanka soo ka noqdaan ku tusaa macnaha oo ka soo tolmada u jeedaan marka soo banaanka noqdo u jeedaan qaabka u tolan yahay oo banaanka oo ka noqday. okay waa kana waa cabirina balciisa afarta gees wuxuu ka yahay min 2 yaardi iyo bar iyo tumin marka 3 gees ayaa waxa laga saarayaa shulka marka 3 gees marka kana cabirna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bar marka okay waa cabirina go sariirka
shushulka hal dhinac ka laabayna marka hal dhinac ka laabayna hal dhinac marada shushulka ah marka aad shushulka laabaysid waa fahmi kartaa dhinaca xun ayaa soo koreeyo macnaha dhinaca xun ayaa soo laabaysaa shay kasta marka aad laabaysid dhinaca fiican hoos ayaa marinaysaa dhinaca xun ayaa soo kormarinaysaa marka aad shay laabaysid marka laba shay isku dhejinaysidna labada dhinac fiican aad xajinaysaa marka shay laabaysid dhinaciisa xun ayaa koreeyo oo dhinaca xun ah xagiisa ayaa usoo laabaysaa marka laba shay isku dhejinaysidna labada dhinac fiican aad xajinaysaa marka inaad qaacidooyinkaas fahamto macnaha isku day ayaan kaa rabaa inaad fahamto insha allahu taala asxaabtooda qaaliga ka faa'iidaysta muuqaalkan waa muuqaal aada muhiim u ah marka hadda shushulka ayaan halgees ka laabayna marka shushulka aan u dhamaaday laabitaankiisa kadib waxaan saaraynaa go' ayaan saaraynaa insha allahu tacaala go' markii la saarayo shushulka saddex qayb ayaa laga saaraa saddex qayb hal qayb ayaad ka tegaysaa waxaad ka saaraysaa qaybta hore iyo qaybta dhinaca iyo qaybta oo gadaale go' wuxuu leeyahay marka laba dhinac iyo hore iyo gadaal oo leeyahay soomaha marka sirta lagu jifaa qaybna lugaha xigsada qaybna madaxa xigsada qaybna dhinac soomaha marka go-sarka waxaad shushulka saaraysaa dhinaca madaxa xigsaha iyo dhinaca geeska xigsaha iyo dhinaca lugaha xigsaha hal dhinac ayaad ka tegaysaa macnaha marka hadda waxaan saaraynaa marka qaybtan qaybta madaxa ayaan kasoo bilaabayna insha allahu tacaala marka asxaabtooda qaaliga ah dhinaca madaxa ayaan ka bilaabana marka ugu horeyso madaxa saaraynaa shushulka kadib dhinaca ayaan ku xijinayna kadibna qaybta lugaha ayaan saaraynaa marka sariirta marka waa dareemi kartaa sariirta qayb lugaha qaybta barkimanka saaraha qaybta aan ka bilaabano waa madaxiisa hore ama meesha oo barkimanka ay ku aadayaan maaragtay marka sariirta lagu gulo qaybta barkimanka ay ku aadayaan waa marka meesha marka shushul aan ku bilaabayno shushulka marka meeshan saaraysid marka aad laba shay isku tulaysid waan kuu sheegay labada dhinac fiican aad xajinaysaa taas macnaheedu waxay tahay hadda go-aan dhinaciis fiican soo koreeyo shushulka dhinaciis fiican hoos u xigaa marka aad laba shay isku dhejinaysid si adhud uusan gadis kaaga noqonin qaacidada aan kuu sheegaya qabso oo macnaha si faham tolmada baaska iyo fiinaha waxay korantaha adiga iyo aqoontaada iyo dadaalka sida harqaanka u taqaanid laakiinse aniga muhiimada macnaha aan kusoo bandhiga oo keliya waxay tahay macnaha inaad shuruucda fahanto macnaha sharciga aan kuu sheegayo iyo wadada aan kuu sheegayo inaad marto oo keliya aan kaa rabaa marka aad laba shay isku dhejinaysid si fiican ii faham marka aad laba shay isku dhejinaysid labada dhinac fiican aad xijinaysaa marka shay laabaysidna dhinaciisa xunaa soo kormarinaysaa oo dhinaca xun xaggiisa ayaad soo laabaysaa hadda waxaan isku dhejinaynaa laba shay waxaan isku dhejinaynaa go' iyo shushul marka maadaama go' iyo shushulka aan isku dhejinayno labada dhinac fiican aad xijinayna hadhoot markii la gediyo labada dhinac fiican macnaha si banaanka kusoo maraan tusaale marka hadda go' tulaysid dhinaciisa fiican ayaa soo koreeya shushulka markaad tulaysidna shushulka aad saaraysidna dhinaciisa fiican hoos soo jiraa marka waxaas xigo dhinaca fiican shushulka iyo dhinaca fiican ee go' macnaha ayaa soo xigaan marka dhinaca oo tolmada markaas waxay maraysaa marka oo maaragtay banaanka markay marayso dhinaca xun ayaad maraysaa macnaha bar islaamka iyo maraysaa tolmada iyo bar islaamka isyeelanaya hadda qaybta madax waan soo tolnay oo maaragtay marka go' afargiis marka uu leeyahay waa laba dhinac iyo hore iyo gadaal soomaha qaybta hore oo meesha barkimanka saaraya waa shushulka waa soo saarnay hadda waxaan wadnaa shushulka waxaan saaraynaa hadda qaybtan geeska ah oo maaragtay oo dhinaca kusoo aadayso zoom aan ku dhaho marka waan kuu sheegaa dhinaca aan saaraya marka zoom aan ku dhaha qaabkan marka aad maaragtay aan u gelinaya biigooyinka inaad aragtid ayaan rabaa macnaha oo aad fahantid mar labaad aan kuu soo celiyo go-a marka aad saarayso shushulka go-a dhinaciisa fiican aad soo kormarinaysaa taas inaad ii fahanto waan rajeynayaa shushulka meesha aad saaraysa asagana marada dhinaceeda fiican hoos ayaad marinaysaa oo go-a xaggiisa ayaad marinaysaa oo macnaha labada dhinacoo fiican oo shushulka iyo go-a ayaad xijinaysaa shushulka waa si qiyaas ayaan saaranaya oo taagtaag ayaan ka dhigayaa haddii laakiinse mar dheer oo ilaa iyo shushulka hadda meesha hadda aniga oo 15 yard oo iga ah haddii aad hesho ka waran shushul dheer oo ilaa 50 yard gaaraya markaas camal waxaad samayn kartaa shushulka fiinaha ka dhiganaysaa qurux oo kugu noqdo macnaha shushul dheer haddii aad heshisid ilaa 50 yard camal shushul waa ka dhigi kartaa ilaa 60 yard shushulka laakiinse waxaa ka dhigaysaa markaas waa tidce marka fiinaha ka dhiga fiino ka dhigan marka hadda waxaa wadnaa hadda qaybta labaad ayaan wadnaa shushulka macnaha go-a maadaama afar gees oo yahay hal gees waan soo talnay oo qaybta madax waan soo talnay hadda qaybta dhinaca ayaan ku wadnaa shushulka kadibna qaybta lugaha ayaan ku xijinaynaa oo qaybta hoose oo geeska kaleeto halkaas ma jeedaan lugaha xaggooda ayaan hadda u jeesanay marka asxaabtooda qaaliga ah go-i waan dhamaynay oo shushulka waan saarnay oo qaybta ugu dambeysa oo lugaha ayaan macnaha hadda amarayna waan dhamaynay marka waxaa noo soo haray marka astaqfirullah qaybta dhinaca ayaa wadna qaybta dhinaca ayaan ilaa had wadna ilaa bahalka waxoogaa boobsiiyey mugta asaa ku qaldan marka hadda qaybta lugaha hadda ayaan kusoo laabtay aan ku wadaa shushulka
marka karaal noqda ana xoogaa khaldamay isha igu boobtay marka asxaabtay qaaliga ah laba qayb aan soo saarnay oo qaybta koowaad maaragtay oo madaxa kor ku aadaysay iyo qaybta oo dhinaca ku soo aadaysay oo jawariga dhirirkiisa ku aadaysay oo shir ku soo saarnay hadda qaybta oo maaragtay oo hoose waa maaragtay oo qaybta maaragtay oo lugaha ku aadaysay waa marka oo sawirka markii lagu gulaayo oo sariirta lagu gulaayo sariirta waxay leedahay madax iyo gadaal oo qaybta lugaha sariirta lugaha iyo qaybta madaxa oo barkimo kala saarnaa iyo dhinaca soomaha marka qaybta madaxa kor ayaad ku bilaabeysaa shirka marka aad saarisid kadibna qaybta dhinaca ayaad ku xijinaysaa kadibna qaybta lugaha aad ku xijinaysaa marka maaragtay oo lugaha marka jiifto qaybta lugaha ku aadaay marka qaybtaas ayaan hadda shirka ku wadaa aan saarooyaa marka qaabkan shirka u jibiyaa u jeedaan qaabkan u jibinaa u jeedaan maaragtay aan u dagaalamayo iyo baas meesha aan tulayna baas waaye laba mar aan isku dhajinayo marka asxaabtooda qaaliga ah shirka hadda meesha aan saarayni waa 15 yaard oo kaliya marka 15 kaas yaard waxaa rabaa inaan sariirta maaragtay go-aada oo go-sariirka inaan saddex gees ka saaro waa rabaa koow inaan laba barkin saarno waa rabaa marka taas inaan fahantiin isku daya marka hadhow shirka marka adiga aad samaysato oo go-aad tulaysid shirka marka isku dhajisto shirka waa cabir ka qaaday intuu ku yahay macnaha inuu ku yiraahdo inuu ka badan yahay horta 15 yaard shirka oo ka yaraado ay ruwaa macnaha mu ku anfacaa waxa taas 15 yaard nafsiga ay yartahay qofku keeni kara la rabaa oo fahmi karo qiyaasi karo marka shirka uu yaraan waxa la rabaa in 20 yaard 30 yaard inuu ku noqdo si ay macnaha oo kaga dhamaan khaasatan shirka hadii aad barbartayta ina dheeraysta ku roon oo mar dheer araasato oo isku tago ilaa 30 yaard inuu ku gaar shirka oo kadibna aad ka saato si fiican aad saato qurux badan aniga xogaa marada ugu yar oo 7 yaard oo baaweyne marka 8 yaard aalad beel aalad marka dhinacan hadda marka xalaabana dhinacan laabana ugu yar dhinaca aan laabano go'a marka aan tulay saddex dhinac shirka soo saaray saddex dhinac marka ku talanta oo shirka saaran mugtahay laabo ka marto marka shirka marka hore aan tulay afkan soo laabo mugtahay marka halkan dhinaca aan laabay dhinaca saddexaad waa marka oo gees ku soo aaday marka asxaabtooda qaaliga ah qaybtan waa iska laabaynaa maadaama shul aan loo haynin oo shul aan la saarin inta badan shul loo talagelin bugo oo ku asal aan ka markiis afrika shul go saaray markiis marka asxaabtooda qaaliga ah barkimanka aan baabkooda galina barkinta waa tana dad barkintan way soo ka laaban tahay marka kala fidiyo content state inji noqonaysa marka isku laaban 29 inji noqonaysa marka 29 inji oo barkinta dhirirka NF waa billa 20 inji oo ku sheegay marka hadda waan kala fidiyo kaasaan waa content state inji marka waa isku laaba isku laabnaa dad isku laaba kadib waa kala jeexa macnaha laba xabo isla aan ka dhigaan waxaan kala jeexa dhirirkeedan kala jara macnaha qaybta gadaan kala jara baana billa ma kala jeexa billa 20 inji oo dhaxda ah lama taabtaan marka dhirirkaas laba xabo ka dhigana marka sababtoo ah mid kamid ah waxaan saaraynaa marka shushulki iyo waxaan saaraynaa maaragtay ilaa kuma darnaado shushulna waa saaraynaa koofidina waa saaraynaa marka qaabka u saaraya faham fiirsada muuqaalka fahma shushulka horta marka uu horeeyo shushulka isoo qabo shushulkana xoogaa iyo marka maraha daata marka muuqaalka aan bilaabin aska jeexayna mugeed oo tuber oo indhaha maradaas marka aad aan ku baxsado ilaaba muddo marada daata ay qasaarto marka tuber marka shushulka ku dheeraysana marka xoogaa jaban ka jeexanaa shushulka marka maadaama waxay u yaryihiin marka ku dheeraysaa iga daray marka waa kaba marka shulkan kaba shulka marka barkimanka ayaga marka shulka asaarisid shulka oo kala qaybay mid kasto waa kala jara shulka laba isla ka dhigay laba isla maadaama laba barkin ay yihiin shulka waa kala qaybina laba ka dhigay mid kasto shulkiisa macnaha gooniya u dhigay isugu darmiist si ay dhulta ay u kala badsan macnaha mid kasta marka shulkiisa ku qiyaasay marka halka xabo oo hadda ku dheeraysanayna oo marka kan ku dheeraysto oo dhinacan ka laaba oo dhinacan kuwan ay kala maayaan camalan asana ka laaba kadib laba isla ayaan ka dhigaa shulku asla ay ka doona insha Allah ta'ala marka waa matalan yahay kaamirada kor ku soo aadistay meesha aan la kaamirista kaamirada kaamirwanka aan la kii maaragtay oo shaqadan aan la qabaha aan la duwa ilin dangeesa meesha marka shulka waa kana labo aan ka dhigana marka afkaan iyo afkala isku qabanaa mijidan qaabkaan isku qabanaa fiirso afka kale waa kaasa labada af waa kuwana marka waa isla sima marka ilaa marka gadaalan tagaa marka dhag marlabaad dhag mar saddexaad meesha ugu dambeysaan joogaa kawkaasi marka laba isla ka dhig barkin kasta marka shulkeeda waa gooni u yaala marka wax isugu darsan labada barkin ma laha marka barkin u tulina marka barkinta kii aan kala jarno waa kana laba isla aan ka dhignay marka mid kamid ah soo qaadanayna
barkinta markaan tuleysa ayadana waa sida go-a camal 3 geesaa ka saareen qaybta hore iyo qaybta dhinaca iyo qaybta gadaala ka saareen barkinta hore marka barkinta aad dhigtid laba dhinac iyo hore gadaal ma laha laba af iyo laba dhinac leeyahay moogtahay marka afkan kor kana soo bilaabeysa marka laba shay isku dhigaysid maxaan ku dhahay marka hore barkintan horta marka hore shushulka af foodan ka soo laabanayna labada food maadaama go-sarka dad marka aan food kama laaban sababtoo ah marka aan dhinacan ka bilaabo oo geeska markaan ku ekeeyay marka dhinaca oo shushulka dhinaca u dhibnaa marka aan laabay ayaa macaan shushulka maanaha waa ku laabay moogta hal mar isku wada laabay marka hadda kan barkinta iyada wax la laabay malaha dhowta la isku dhijiyaa oo kaliya moogta kan marka aad tushid oo shushulka meesha asaartid oo koofida asaartid qaybta kala saaree oo isku taleebis oo kaliya marka wax la laabay malaha marka hadda ayaan sii laabanayna marka qaybteena labada food ee shushulka dhinacan waa kala mar waa ka laabnaa oo markii oo marka u wareysay oo kood marka aan go inta tulin ka hor ayaan shushulka hal dhinac ka tolo moogtahay marka dhinacaas tolon dhinaca aan tolon ayaa la saaraa baarak maarad go-a ama barkinta meesha saaraysidba marka hadda barkinta marka aad saaraysid qaybtan fooda aad kasoo bilaabaysaa fooda hore ayaad kasoo saaraysaa marka hore dhag fooda kasoo bilaabaysaa qaybta barkinta macnaha hore gadaal iyo dhinac leeyahay moogtahay qaybta hore kasoo bilaabay dhinaca ku xijinaya gadaala ku xijinaya sidii go-a camal waa go-a sa u tulaysa ama kaa dhumaa saas camal waa waxaan hore kugu sheegay marka aad laba shay isku dhijinaysid qaacidada aad isticmaalayso laba shay marka isku dhijinaysid waxaa isticmaalahan ku dhahan waxaa isxijinaysaa labada dhinac fiican ee shayaalka ay leeyihiin tusaale hadda barkinta dhinaca fiican kor soo jira shushulka aan saar dhinaciisa fiican hoos soo jira marka meesha waxa kala soo baxayso labada dhinac fiican oo isxigaan macna dhinaca fiican oo shushulka dhinaca fiican oo maaragtay barkinta aan tulino oo maradan barkinta meesha ii saar aan tulaya way isxigaan barkinta marka aad tulaysid dhinaca fiican kor soo marinaysaa marka shushulka aad saaraysaa moogtahay shushulka aad saaraysidna dhinaciisa fiican hoos marinaysaa si labada dhinac fiican ay isku xigsadaan okay hadda qaybta oo foodo hore waan tolnay waxaan hadda tolinaa qaybta dhinaca aan tolinaa hadda ujeedaan okay marka dhinacaas aan tolno kadib qaybta kaleeto oo foodo kale oo gadaala aan tolinaa marka intaas aan sameyno kadib waxaan saaraynaa insha Allah taala maxal la baash la magaca koofida aan saaraynaa kadib markii koofida aan saarno kadib ayaan qaybta kaleeto aan saaraynaa oo barkinta qaybteeda kaleeto markaas waxa ka dambeeyo waa ku toleynaa marka ku tolen kadib waa gadinayna insha intaas oo kaliya ay koobanta barkinta marka inaa fahantiid oo kaliya isku day muuqaalka aan ku soo bandhigayo qaybta ugu dambeysa ayaan toleynaa haddana qaabka aan isugu dhameynaa daarito waa la yaabaysaa waa kana shushulka iyo barkinta waa isla dhamay mujeedido qiyaasaan ku wadaa marka adiga waxaa laga yaabaa inaad qiyaastaas aad keenaysid marka maadaama qiyaastan aada keeni karin waxaa laga yaabaa waxaa ku roon inaad shushulka dheereyso hadda meesha aan 15 yaardi aniga hadda aan maarata aan rabo inaan ku sameeyo 30 yaardi isticmaal si macnaha oosan kuu dhibin macnaha hadhowti hadda barkinta labada qayb barkinta la iskor saaraya mid kamid waxaa ii saaran shushul ii saaran marka waxaan kor saaranaynaa hadda oo kaliya ona dhiman ma aragtay ilaahay kuma darnaade koofidaan saarana koofid marada koofida ay maqan koofida dhag laba xabay aad mid hal xaba soo qabso okay koofida hal dhinac ka soo laabay marka koofida marka shay laabis maxaan ku dhahay horta waa waxa soo taamalaha marka shay laabis dhinaciisa xuna soo kormarnaysa dhinac xun aad soo laabaysa macnaha marka shay laabis ama dirac laab ama garab saar laab ama barkin laab marka shay la laabayo laab haddii taa ina wax laabs markay noqoto dhinaca xun xageeda la soo laaba marka intaas faham marka kan barkintan dhinaceeda fiican marka laba shay isku dhijinayso waxaan ku dhahay laba dhinac fiican isxijinayso hadda barkinta dhinaceeda fiican soo korayso bahalkan aan saarayo hadda oo daboolkan aan saarayo meeshana waxaan asxaabteeda qaaliga ah okay dag waa kaasa madaxa ayaan ku tala marka madaxii waa kaasa dhag waa kaasa majeedaan waa ku celish okay kow marka kiisas dheeraadka oo iska jeexaysaa marka meeshaan qaybta oo had koofida waxaan saarayna meeshaan hadda
koofida madaxa ayaan ku tala qaybta madaxa labada madax mid kamid ah ku tuleysaa okay koofidii marka waa taas meeshaan ku soo laab barkinta dhinaca fiican oo soo koreeya koofida dhinaceeda fiican oo soo xigaa labada dhinac fiican oo barkinta iyo koofida dhinaca fiican xajisay marka kor aad ka toshaad dhinaca ka tuleysan inta ka tuley qaybka inta la iska fiirso waad fahmi doontaa insha Allah taala meeshaas shurkaas marka dhinaca tuleys inuu ka qayb qaato lama rabo macnaha waxa la tulay inuu kamid noqdo marka gudaha soo gelinaysa shulka waad ka ilaalinaysaa meeshaas okay waad tuleysaa marka asxaabtayda qaaliga waxaan wax dhibadan ma ahan inaad waxaan rajeynayaa inaad ku wareegi doonin oo aad fahmi doonto insha Allah taala marka dhid marka gedisaas oo noqon doona hadda laakiin ma la gedinayo gediskiisa ma dhawo waxaa la gedini doonaa insha Allah taala markii maaragta aan talno maaragta maxaa la baash xeeyd marka koofida aan talno waxaan ku dhigi doonaa qaybta kaleeto koofid marka tuleysid qaabka inta la inaad darata umaleynaa marka ugu horeys koofida marka asaaraysa meesha madax hore ku tuleysaa kadib laba dhinac ka tulay marka ugu horeys madaxaas ka tuleysaa oo bilowga kadib laba dhinac ka tuleysaa shulka marka aad gelisno gudaha soo gelinaa shulka u jeedaa shulka banaanka ka marin inaan gudaha soo gelinaa u jeedaa meesha shulka oo shulka markaan saaray qaabka u saaro oo kaliya oo camal macnaha hadana ugu talaabashan barkinta ugu qorxan waa iyana ugu dhibadan waxaa jirta shul aan la talo oo macnaha wax shul aan lahayn way jirtaa taas oo iska fududahay ma dhibadno tana ugu dhibadan marka laagataan daa dartid barkinta waa last ultima nooca ugu fiican waa oo barkin shul waa TBS tarna waa macnaha koofiya ku leedahay marka asxaabtayda qaaliga ah kan marka saaraysid waa kana kara soo marnay marka aad ku tuleysid marka maradaas kale maradan tan waa kana koofida ku tolan tahay waa kana marka aan ku soo korgamidoon marka aan ku tulaayo saddex meel ka tuli doontaa saddex meel oo kaliya waxa ka tuleysaa labada dhinac iyo hoos qaybtan koofida soo xigto kama tuli doontid adood meesha la gidi lahaa oo barkinta la gidi lahaa marka aan soo korgamisid dhinaciisa fiican hoos oo xigaa barkinta dhinaca fiican ka soo xigto ku sheegay labada dhinac fiican asxajinaysa markasto asxaabtayda qaaliga marka ma aragtay marka aan tulay kan saddex meel aan ka tulay inta ka bilaabo ku yoro dhinacan ka bilaabo mujeedna dhinacan marka aan tulay dhinacan ka bilaabo dhag qaybtan kore oo koofida xageeda kama tulay mujeedna dhinacan ka bilaabay kadib waxaan ku xijin doonaa qaybta hoosaan ka soo tuli doonaa oo barkinta kadib dhinacan kale aan tulay kadib waa meesha u baxaa qaybtan u koreyso hadda oo aan meesha ka bilaabo oo ku aadan oo meesha koofida maba la tulaayo min loo talagalay in la tulo marka asxaabtayda qaaliga intaas ina fahanteen rajayna insha Allah taala dunta laga dhamaatay kastaas aan odhan oo kaliya marka saddex dhinacan ka talo u jeedaan dhinacan labada dhinac iyo qaybta gadaaran ka talo marka meesha oo madaxa kore ma aragtay hadda meeshaan ma aragtay qaybta hoosaan soo tahay qaybta dhinaca kale tabsa idma dhag marka inta ka tashid maxaa ku dhin marka aad ka tagtay waa kaasaa labada dhinac hal dhinac iyo hoosaan talo dhinac kale ay dhiman jeedino marka dhinacan talo meesha ugu koreyso aan ku okeynaya okay meesha bisa ku okeynaysaa qaybta hadda meesha gacanteeda ku aadan la tuli maayo meesha sida dulila kaasaa sababta waa meesha laga gedi lahaa dhowto marka la gediyahay waa meesha laga gedi lahaa waa gaas waa gedinaysaa bis oo kaliya dhag waa kala gedinaya dhag okay koofidi gadaara kaa jirta koofidi gadaara kaa jirta marka koofida kusoo gedinaysaa kan waa kaasa koofida kusoo gedinaya okay asxaabtayda qaaliga barkintu waa ku tahaasana ku tahan qaabkan ay noqotay oo u jeedaan qaabka ay noqotay u jeedaan barkin oo original ah oo shushul leh oo waa kaasa oo koofi leh meesha ay laga gelinaya marka barkinta la gelinayo marka foodar nadiif ah oo original ah haysta marka waxaan rajeynayaa inaad si wanaagsan u fahamteen oo wax badan ka faa'iideen insha Allah taala tii labaad ayaan gelinaa marka baabkeeda
dhag ayadana waa kala jaraynaa dhirikeeda kala jaraynaa marka u hoosato laba xabaan iska isla aan ka dhigaynaa mid kamid aan soo qaadaynaa marka u horeyso waa kana maaragta fodarihi oo koofidi dhinaciisa hal dhinacan ka laabeynaa dhinacan ka laabeyn dhinac oo afka horumar laabaa dhooti oo saa dareemaysid marka barkinta labaad oo ku baraata kanin hadda hal xabaa soo fiirsatay tanna tii labaad oo marka marka aan fiirsatay inaan wax badan fahantaa rajayna insha allahu tacaala marka hadda waxaan bilaabeynaa shushurka ayaan afkaas hore saaraynaa kadib dhinacaan saaraynaa kadib afkaan kala saaraynaa dhinacaasna waan ka tegaynaa okay okay marka shushulkan labada afaan ka laabeynaa marka ugu horeyso intaan la saarin ka hor labada afaan ka laabeynaa afka laaba ilooyin sababay ah okay afka waa ujeedaan inaan laabnay dhag goosararka oo xoogaa ku daahan waqti badan ugu qaato والله بارك مشاني رأسنا قصري للشلا برك من كيس شو اللي قلها وكوفي لو يلا هواي مش غير يا سأقوم له شيء معه مركب ما راح أكسب بلانا ما رت لبض أف مت كمية أنا صارنا ما رت شو كان مركب أنت أنصارنا أفكار أنصارنا مركب ورئيسه برك أنت لنا هذا في عن فورا أنت نعس عن تصجر كور شو كل نعس في عن أنت تجرا هوس أنت سلوس مركب لبيش تقول جينيس ده حنقول ده لو غير نعرف عن ناس حجينيسا مركب شيء لابس إن إحنا أصلا لابس أنت سبسوك اللي نعرف عن تسكود مركب قاعدة جود مهم كأنت سوين شيء مركب لابس وحر هنقدر هنقدر مركب هنقطة هنقطة لنا إحنا أصلا مرنا كدينا إحنا عايز أصلا لابس مركب لابس لبيش تقول جينيس شيء هو صار نعس في عن أصلا مرنا شيء كرر نعس في عن هو صار حجينيسا si labada dhinac fiican ay isku xigsadaan hadda barkinta hooseysa dhinac fiican kor soo xiga shushulka koray dhinac fiican hoos soo xiga labada dhinac fiican saas isku xigsadaan marka hadda shushulka waan geliyaa boobsiga ujeedaan ordan ku furo sababta waqtigaada ana soo ordo u furaya 38 daqiiqo maruna 38 daqiiqo marka waxaan saaraynaa koofidiyaan saaraynaa marka asxaabtayda qaaliga ah markasaan ay halkan ku maraayo koofida dhinaca ka laabneed hoos soo maraya horta qaybtaas kor lagu dhajiyaa qaybta L oo koofida oo laabneed ma marka laba shay isku gumbiyeys maxaan ku dhahay waa ku sheegay waa ku soo celinaa dhinaca fiican oo koofida inta xaga hoos xaga dhinaca fiican oo go'an kor soo xaga marka laba shay isku saaris isku dhajinaysid labada dhinac fiican is xajinaysaa si shaygaas labada dhinac fiican is xajiso isku xajis macnaha shayga hoose dhinaciisa kor soo marinaysa marka hadda barkinta dhinaceeda fiican kor soo jira baalka aan saarayno koofida dhinaceeda fiican hoos u xiga marka okay dhinaca fiican hoos u xiga hoos gabsi soo kas gaba ku siisa marka madaxa ka tulay marka madaxa ugu tulay marka hore madaxa jaka si horta madaxa ka tulay dhag oo kasan marka madaxa ka tushid kadib laba dhinac ka tulay hadana macnaha koofida inta la eebsa tulaysaa okay koofida waxa ay koobinta aan u talagalay maaragtay go'a ina ka yarata ku daran dhoot macnaha kaas ajaha kasta jirtaan marka hadana koofida qaybta madaxa oo fawran ku dhijiyay moogtaan qaybta marka inta ku dhijiyay marka aad ku dhijinaysid madaas meesha soo jeedo oo shulka كل قومي سديان كم جرت كسر جودها جلية رك كإلى أنا تشكي إلى دوتي صوت أرد مركز قديني سد أو كده بدون تعديات أسكت تشيد خابت عنه كان أيضا وكتر ليس مركز أنت مركز كوفيد صدح مالان كتر كر إلا بدك جيس مركب هذا مركز حاسس وكسر أنا بحال كمارات إلى كم درنا هذا
marada kaleeto oo barkinta marada kaleeto laba maro barkin marka inta la saaran ka hor shaqada ka horeyso mid kamid ah sharaxaya shushulka yeelo koofida yeelo kadib markaas soo ku diyaarsan yahay marka saabtii qale waa kor saarna marka xarfaanka marka dhinaciisa fiican tamarna hoos barkinta dhinaca fiican aad soo korreey moogtaa qaybta koofida iyo adduunyada soo koreysa marka kana dhinaciisa fiican hoos ajinaysaa dhag marka kana waxaan ku dhahay saddex meel ka tulay saddex meel oo kaliya waxaa ka tulaysaa dhinac hoos iyo dhinac kale dhinac kor waa ka tagaysaa oo koofida ay saaran tahay sababtoo waa meesha ahadud gacanta ka gelileed oo ka gedi lahayd waa meesha barkinta ka geli lahayd waa meesha koofida ka soo bixi lahayd marka meeshaas meesha dhan lagu shaqeysaa marka inaad fahanto isku day sabtiga qaaliga ah janaal ku soo dhawaada haddii aad ku cusub tahay si aad ugu noqoto arday ku xiran janaalkayga subscribe saaro gambarka taabo asxaabtiin u sheer gareeyo haddii harqaanka aad danayn anka waxa laga yaabaa kuwa u baahan inay jiraan oo ay ka faa'iideystaan marka u sheer gareeyo haddii qof u baahan oo maaragtay sheer u dhahdo oo ka faa'iideysto waxaa laga yaabaa inay sadaqa jaari oo hubaal bika soo gaaraysa ajir waa ka heli doontaa insha Allah tacaala muuqaaladan aniga ilaahay dartiisa u sameeyay oo dadka aan ugu talagalay in maaragtay ay ka faa'iideystaan markii asxaabtayda qaaliga inoo soo duceeyo ilaahay isoo baray inuu dambiyo ilaahay dhaaf insha Allah tacaala asxaabtayda qaaliga aad ayaan jeclahay marka muuqaalka waa kana hadda qaybtii ugu dambeysay ayaan tolaynaa ee barkinta toliinkii go-sariirka saan ayaa noogu dhamaaday hadda oo keliya waxaa noo dhiman waa feere iyo dhamaystir oo keliya ayaa noo dhiman maahan inta ugu muhiimsaneed waa kasoo dhammaanay asxaabtayda qaaliga waa kaasaa barkinta dhammaystiran oo koofiyada iyo shulkooda iyo waxaa wadato go-in mar ayaan tolnay barkinta kalena waa tolnay marka labada barkin waa kuwaanaa heer loof ku caawiya insha Allah tacaala asxaabtayda qaaliga qaybta waxaan soo gudbaynaa oo feerada asxaabtayda qaaliga janaalka kusoo dhawaada sheer dhaha muuqaalka like saara muuqaalka like saara wixii markaas design aad u baahan tahaan oo dharka dumarka ah ama dharka ragga ah qaybta commentiga aad igu soo reebi kartaa insha Allah tacaala labada barkimood oo kuwana marka waa ujeedaan qaacidada aan ku sheegay oo kaliya soo mar sababtoo ah waxaan isugu kaa daray aniga laba shay oo ah inaan muuqaalka ku duubo oo ku tusiyo shaqada aan qabahayo iyo inaan cod kuu saaray oo marka shaqada aan hayo aan cod kuu saaray oo aan macnaha afka aan kaaga sheegay marka labadaas haddii isku darsato harqaankan wax kaga bilaabay waxaan rajeynayaa inaad wax badan fahmi doonto insha Allah tacaala oo aad wax badan ka faa'iidi doontid marka waa kana shulkii waa feereynay barkintii shulkeeda ayaan hadda feere ku wadnaa marka meeshan boos ayaan ku furo sababta meeshan oo kaligeed ayaa ugu yaraan 10 daqiiqo ka badan la taagnaa marka aan waxaan rabaa in hal daqiiqo kusoo afjaro hadda muhiimad oo kaliya inaan feeraa in ogaato oo kaliya ayaan ka rabaa marka waa ujeedaan qaabka u feeriyo asxaabtayda qaaliga ah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي قالقة قصريرك وكاسا قصريرك ولا لعبني وكبعينا أكلي أكلي إنجلنا إن شاء الله تعالى نكسر دواجنا كجون جوان ميسك أي وقرن تمرك وحرجنا إن تكسر دواجنا تان asxaabtayda qaaliga muuqaalka waa intaan ayuu aan kusoo gabagabeynayna insha Allah tacaala inta aan muuqaal dambe ku kulmi doono insha Allah tacaala assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh